السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود ياركوسو دوادا دوداك موضوع عيدو يحي دورك دلنيرada Soomaaliyeed ay ku yeelan karto nabadeynta dalka oo idinkaga imaanaysa magaalada Garowe waxaana igala qayb galaya doodani Dhul Daahir iyo waliba Axmed Maxamed oo kamid ah dhallinyarada Soomaaliyeed wax ku baratay magaalada tan Garowe iyo sidoo kale Saciid Xasan Faarax oo ah gudoomiyaha dhallinyarada ciyaaraha gobolka Nugaal iyo sidoo kale Saciid Yuusuf oo isna ah waaye arag bartay maadada civil accounting-ka samarahaantana dalal badan oo caalamka soo maray ugu horeynta waxaan ku bilaabayaa Dhul Daahir iyo sidoo kale Axmed Maxamed idinku ku soo dhawaanaya dooda maxay tahay doorkiina idinkaga aadan nabadeynta dalka bismillaah maxamuud aad iyo aad baa mahadsan tahay waan salaamayaa dhammaan guud ahaan dhalinyarada ka soo qayb gashay dood cilmiyaadkan lagaga hadlayo doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leedahay nabadgelyada ay ku leedahay waa shay ama qodob aad iyo aad bay muhiim u tahay marka waxaan leeyahay qodobkan mar hore bay ahayd in laga hadlaba dhalinyarada Soomaaliyeed qaabka ay kaga qayb qaadato nabadeynta kaga qayb qaadato laba midba way kaga qayb qaadataa marna way dumiyaan marna way dhisaan labada dhinacba waa loo adeegsadaa labada dhinacba waxa weeye waa shay ugu fudud oo loo samaysan karo loona adeegsan karo marka waxa weeye waxaan leeyahay dhalinyarada dalkooda yeysan iska dumin ha dhisato badanaa waxaan leeyahay wax sababta loo soo badiyay wiilasha loo soo badiyay maanta waxa weeye khalkhalka amni badanaa waxa geystay waa wiilal waxaan leeyahay qaabka u xooji lahaydeen xaaladdeena amni xaaladda dalka xaaladda dadka dhammaan gacanteena ku jidhaa baan leeyahay bismillaahi raxmaani raxiim su-aasha haddii aan dhex galo horta waxaa la isweydiinayaa waa maxay dhalinyaro maxayse yacni waddanka ama bulshada ay ka yihiin dhalinyaro waxaa la dhahaa waa age-ka u dhexeeya dhowr sano jir ilaa 50 jir inta ka sokaysa so marka haddii la dhaho door noocyo bay ka qaadan karaan nabadda door muhiim ah oo dhinacyo badan taaban kara bay ka qaadan karaan markii dib loo eego dhalinyarada aan ka soo bilowno 60kii wixii ka horeeyay dhalinyarada Soomaaliyeed waa caadi ahaan waa dad aad u firfircoon dhiiran waxay ka soo qayb qaataan iyo taariikha ay waddanka ku leeyihiin oo wada ogsoonahay oo hadda isku sheegi mayno waxaa ka mid ah halgamayaashii SYL intaas ka dambeysay taariikh qurux badan bay lahaayeen waddankeena waa uu dumay kadibna waxaa weeye waxay bilaabeen dib u dhiska ayagoo ka bilaabay kow doorka ay ka qaadanayaan ka qaateen nolosha ama ka qaadan karaan waxaa ka mid ah kow horta waxaa waaye dhinaca cilmiga dhalinyaradii markii dagaalku dhacay kadib waxay bilaabeen meelo badan oo wax lagu barto taasi waxay qayb ka tahay nabadda dalka sababtoo bulsho wax baratay waxay ku dhiiranaysaa inay ogaato micnaha nabadda qaybtood waxay bilaabeen ganacsi shaqo abuursi dhalinyaradii taariibi jirtay ama falalka amniga lidda ku samayn jirtay shaqo abuur loogu sameeyo lagu dhiirigeliyo taasna waxa weeye dhankii ganacsiga bay waxa weeye qayb weyn ay ka qaateen dhanka waxaa ka mid ah siyaasadda burburkii kadib dhalinyaradeenna waxay bilaabeen waxaa weeye inay door ka qaataan dib u dhiska dalka siyaasaddii soo galaan waxaa weeye ay taariikh wanaagsan ay ka sameeyeen sida hadda wada ogsoonahay oo dhan waxaa suurtagala in la isweydiiyo qayb ka mida waxaa laga yaabaa inay dhanka kale ay yihiin laakiin waxaa ka badan kuwa wanaagsan shaqooyinka wanaagsan qabta dalka wax ku oolka u ah inahaasoo dhan bay kaga qayb qaadan karaan dhalinyaradu sababtoo maanta 75% dalka waa dhalinyaro ganacsiga ugu badan haddaad fiirisaan waxaa weeye dhalinyara ee asaasaysa haddii aad fiirisaan waxa weeye meelaha aadka u waaweyn oo kamid ah waxa weeye sida isbitaalada iyo waxyaabaha dhalinyarada joogta markasta dhalinyaradu inta badan waxay ka qayb qaadan jirtay nolosha qaab noocaas oo kala been uga qayb qaadan jireen nabadda intaas oo dhan waxay
qayb ka yihiin dib u dhiska dalka ama waxay qayb ku yihiin nabadeynta sababtoo ah muhiimaddu waxaa weeye hadda dhalinyaro qurux badan baa horteeda fadhida kulli waa aqoon-yahamiin weeye fursadda aad u heshaan inaad wax barataan waxaa sabab u ah dhalinyaro soomaaliyeed baa sabab u ah marka qaabka noocaas oo dhan bay kaga qayb qaadan karaan asalaamu calaykum aad u mahadsan yihiin luuliya axmed aan u soo wareego dhanka guddoomiyaha guddoomiye waxaa qayb ka tahay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha marka ma dareensan tihiin in dhalinyaradu door fiican ay ku yeelan karto nabadeynta dalka bismi illaahi raxmaani raxiim aad baan u dareensannahay in dhalinyaradu ay yihiin laama amniga iyo maaragtay amniga khaasatan puntland ay xooggoodu ay ka qayb qaataan si aad arkaysaan hadda waayadii ugu dambeysay saraakiisha dowladda waxay u badan yihiin waa dhalinyaro dowladda hadda madaxweyne sayid cabdulaahi deni waxay u badan yihiin 50% waxaan ku leenahay waa dhalinyaro dhalinyaraduna waxay leeyihiin qatarta ugu badan ee hadda koonfurta oo kale dhalinyarada ku sugan yihiin iyo kuwa puntland aad bay u kala duwan yihiin oo waa ka qatar yeerihiin maadaama 99% aanu haysano nabad dhalinyarada iyadu dhibaatada ugu badan ay la haysan jirtay waa tahriibta haddana 90% tahriibtu way soo yaraatay oo meelo badan baa soo xirantay marka ahamiyad weyn ayay ka qaataan ka qayb qaataan arrimaha maaragtay amniga ee dalka waatahay aad u mahadsan tahay anu wareego Saciid Yuusuf oo ah way arag Soomaaliyeed mudane waxaan ku weydiinayaa adna si guud markaad u eegto mowduucan ku saabsan dhalinyarada iyo nabadda adoo kaashanaya markaa way aragnimadaada dhalinyaradu kaalin intee leeg ayay ka qaadan karaan ama ugu jiraan nabadeynta dalka bismillaah horta dhammaantiin waan salaamayaa dhalinyaro magacayga Saciid Yuusuf baa la yiraahdaa barasho wanaagsan maxamuud aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa haddii aan arrinta su-aashaad i weydiisay aan ku cabiro aqoontayda yar ee gaaban oo aan badnayn runtii anigu waxaan isleeyahay dalka dhallinyaradu wax weyn bay ka qaban karaan walow aan aaminsanahay inay soo daaheen anigu waxaan ka mid ahay dhallinyartii idinka inay ka horreysay haddana dalka ka tegey markaan tegayey waxaan raadinayay nolol iyo nabad wax kala dooni mayno gaajo ima haynin oo dalka gaajo iguma haynin dhibaato kaleta iguma haynin nabad wanaagsan oo waarta inaan helo iyo nolol wanaagsan eyl baan ku dhashay markaan 20 gaaray waxaan dhaafi waayey oo saasoo ilaa gaalkacay dalka nabad ma jirin wuxuu ahaa mid aad u kala xiran si taas aan uga baxo si taa looga baxo ama anigu aan u noqdo qof raba meeshuu rabo tegi kara ayaan hor dalka uga dhoof waan soo laabtay haddaan soo laabtay meelaha dhalinyarta aan ka dhaliilaya oo aan isdhahayo maanta xoogaay waxbay soo fahmeen waxaa ka mid ah sidii guddoomiyuhu sheegay oo kaleeto dhalinyarada dalka isagoo aan dowlad lahayn nin waliba oo dhalinyaro ah gabar ha ahaada ama wiil ha ahaadee hooyadiis ayaa wax bartay dowlad wax bartay ma jirinin hooyadiis shaqo badan ma haysato waxaa laga yaabaa inay suuqa ka shaqayso ay baradho iibiso iyo wax la mida toona isagoo sidaa wax ku bartay maalinta dambe doon buu ka raaca uu ka dhaqaaqa halku dhig aanaan weli dhallinyarada u sheegin oon waagaa soo saaray waxay ahayd war dhallinyaradu dalkan kay iyagu dhaxalka u lahaayeen wey yay siinayaan weli ma helin qof dhallinyaraa iiga jawaaba yaa la rabtaa dalkan bari inaad ku wareejisid haddaad ka tagtid adigu arrinta nabadda haddaan usoo noqdo taas halkaasaan ku joojinaya arrinta nabadda haddaan usoo noqdo simbale way sahlan tahay anusaan aaminsanahay haddii dhallinyartu ay maskaxdooda ka shaqaysiiyaanin hadaf yarna ay qaataanin waxay aniga ila tahay muddo gaaman inay dalka dhammaan lana midayn karo nabad waartana laga heli karayo sababtoo ah kow horta waa inaad qaadataan ama ka fikirtaanin kacdoonkii labaad dalkan asagoo gumaysta haysto dhowr dhallinyaro ayo 13 ka yar maanta waa badantiinba 60 baa badantiinba waa fiicantiinba gobolada kalena waxa laga yaabaa kasii badantiinba laakiin 13 saas kale meel isugu yimi unba ka fikiray dalkan say ku xoreyn lahaayeen ilaahay uu ku guuleeyay wax waliba waa go'aan aniga waxay ila tahay hadalka badin maayo raalle ahaada waa badan tihiin waxay ila tahay aniga nabaddu maalintan anigu caqlisaday waa maqnaydo salaantaa waxay ahayd nabad ma sheegta
way sahlan tahay sida loo curan karayo hadda ama dalka dhalinyarta ay uga fikri karto kow adduunyadu maanta waxay ku socotaa waxa la yiraahdo hayaan oo maxay hayaan u yihiin nolosha kow haddaan nabad la helin nolol ma jirto dhalinyartu marka ka fikiraan kow horta shaqo abuurka iyo systemka dawladnimada habkay ku soo gal lahayn wali waxaynu hortaagan nimanka 60 soo taagnaa iyagana dalka si fiican u qasaya ku talagala idinku marka inaad isqaybisaan shaqada laga soo bilaabo shaqooyinka kulligina ku fikireen in xafiis wada fadhiisataan shaqada hoose ilaa shaqada sare waana isku qaybisaan hankiinu ha ahaado mid aan ku salaysnayn ina asagu lacag helo ee hankiinu ha ahaado mid magac uu ku raadinayo iyo wadaniyad nabadu intaa bay ku imaan kartaa aniga garashadayda sidii la tahay waana mahadsantahay maxamed aad u mahadsan Saciid waxaan codsanayaa markaasi dadka naga qowgalaya in mikrofoonka aad u qiimayo marka inaad afka si dhow ugu toosiyaan sidoo kalena aad waqtiga noo soo koobtaan dhalinyarada marka la ku celinayaa sida ayaa dhalinyaro ahaan idinku markaas uga qayb qaadan kartaan in markaasi qayb ka noqotaan nabadeynta dalka waxyaalaha uga qayb qaadan karna waxaa ka mid ah kow in la sameeyo wax la dhaho wacyigelintaasoo ku aadan qaabka lagu adkay lahaa nabadda lagu adkay lahaa wacyigelinta haddii la sameeyo oo wacyigelin ku aadan qaabkii nabadda lagu xooji lahaa ay tahay horta waxaa wax qaata waa qalbi fayow iyo qof marka horeba positive ahaa iyo qof alla u naxariistay qofna fikir in wax hadal loo sheego laguma bedeli karo laakiin waxaa qofku isku bedeli karaa nafsad ahaantiisa inuu go'aan ku qaato habda say xaaladda nabadda dalka uga qayb qaadan lahaa khaasatan anu waxaan bartay kuliyadda horumarinta horumarin haddee waxaa weeye markii laga hadlayo horumarin laga hadlayana waxa koowaad oo soo gudagala waa dhalinyaro dhalinyarta la rabo dalka xaaladdeeda amni oo kale inay kor u qaadaan waa jiilka ina hor fadhiya iyo inta maqan oo iyagu matalayaan waxaanu kaga qayb qaadan karnaa wacyigelin koow inaan samayno labo la tashi lala samaynayo waaridku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ammaanka xoojiya inaanu shirar la yeelano waaridkii si uga qayb qaadano horumarka awlaadooda ay dhaleen ay ka qayb qaadan lahay waayo qori keligii ma olole baa la yidhi qori keliya haddaad dab ku shidado meel iska dhigtid ma olol ayuu gudamayaa ilaa loo helo qori kaloo lagu daaro ilaa loo helo marka waxaanu ku xoojin karnaa markaa nala shaqaysaan aynu wada shaqayno idinla shaqayno markaas baynu heli karnaa xaaladdeena ammaanka nabadeynta wanaagga quruxda horumarka intaba markaasaa la heli karaa waa sidaan aaminsanaya anugu bismillahi raxmaan raxiim horta waa in la isweydiiyo horta nabad darro ma jidho marka nabad laga hadlaayo ama waddan nabadiis laga hadlaayo stages ay soo martay nabaddu leedahay peace enforcement peace making peace building stages noocaasoo kale bay leedahay waddankeena marka hadda wuxuu ku jiraa meesha ugu fiicnayd oo nabad darro maanta ka jirta ma jiro laakiin halkii laga rabay xoogaa ma gaarsiisana ka dhalinyaro ahaana waxaa la dhahaa dhalinyaradu waa keydka qarsoon ama keydka dahsoon ee waddanku uu leeyahay waana meesha laga cabiro dhalinyaradu waddankaas mustaqbalkiisa meesha laga cabiro waa dhalinyaraduna maanta qayb weyn bay ka qaadanaysaa nabadda waxaan maqraanti ka nahay
ciidamada qalabka sida waddanka inay ku jiraan oo dhalinyaro u badan yihiin har iyo habeen ay u taagan yihiin buuraha fogfog dhaxanta badan badaha inay u taagan yihiin si ay nabadda qayb uga qaadan lahaayeen waa dhalinyaro waaye booliska waa aragteen waa da-yar dhalinyaro rag iyo dumarba soo marka kaalin weyn bay ka qaataan intayada kaleeto maca waxa weeye aan macnaha shibilka ah oo shacabka ana kaalin waxaan ka qaadanaa muhiim ah sababtoo ah waxa weeye kaalimaha qofku haddii wax la barto waxbarashadu qofka iyadaa bedesha dhalinyaraduna kaalimo noocaas oo kale ah bay ka qaataan nabadda marka waxaan aaminsanahay sanadda ay kasoo sheekeynayay haddii noqon lahayd ganacsigii siyaasaddii iyo waxyaabihii kaloo dhanba in waxa weeye ay dhalinyaradii maanta ay gacan ka geysanayaan haddii noqon lahayd dhismaha dowladnimada ama statiska ha noqdaan ama federaalka ha noqdaan waxay u badan yihiin waa dhalinyaro soo marka 75% meeshaan ka ahayn waxa weeye 50% hadda toos waxa weeye bay ula falgashay waddanka inta kalena biidnillaahi tacaala waxaan rajaynayaa inay dib ka soo cusbooneeyaan marka door noocaas oo kale bay nabadda ka qaadanayaan way ka qaadan jireen oo waxa weeye markii dib haddaan u laabto dowladdeena ay burburtay dhalinyaradu waxay ahaayeen isbitaalladay joogeen dadkii dhaawac ahaa dhimanaya way daweynayeen waa qayb ka mid a nolosha waa qayb ka mid a sidii nabad loo helaa in nolol la helaa ka muhiimsan in nabad la helo marka noloshii alxamdulilah meel fiican bay ka marayaan nabadiina wax yar baa u dhiman marka inahaasaan kaga baxaya asalaamu calaykum oo sii wadananaa marka anoo mahad celinaya nuuli axmed aan usoo wareego guddoomiyaha mudane guddoomiye marna dhalinyarada ma ugu yeerteen si aad markaasi ugu wacyigelisaan inay ka qayb qaataan nabadeynta dalka bismillaahi raxmaani raxiim dhalinyaradu waa marar badan baan u yeeray oo inaynu wacyigelino dhalinyaradu ma jirto khataro badan oo laga wacyigeliyo waxyaalaha laga wacyigeliya waxay tahay waa tahriibta iyo falal yaryar oo aan fiicnayn ee taleefanada iyo waxaan macnahana lahayn laakiin waxa intaa ka badan oo nabad darro ah oo dalka Puntland hadda ka jirta ay dowladda Puntland ma jirto oo intaa ka ballaaran oo maaragtay laga wacyigelinayo dhalinyaradu boqolkiiba 99 waa niman dhalinyaro ah oo wax barta qaarkood iskuulaha dhigtaan qaarkood sports ah oo maaragtay xilliyada ay kubadda ka soo tagaan marka ma jiraan waxa koonfurta dhalinyarada ku nool oo kale qatar siday uga nugul yihiin kuwa iyaga uma nugla oo waxyaalo badan oo kuwa ay ka qayb qaataan oo haddii argagixisada ahaan lahayd haddii qolooyinkaas nabadiidka ahaan lahaayeen kuwa iyagu maaha kuwaas waxyaalaha gala oo ka qayb qaata marka sidaas la-aali waxa laga wacyigeliyaa waxay tahay nabaddu ahmiyadda ay leedahay Puntland 98 ilaa yowma hada oo 2019 sidaan u xajisan lahayn dhib badan oo loo soo maray dagaal looma soo marin waa taqaanaay dalkeenu iska nabad buu ahaa hadday walaalkii wuxuu yidhi dalku waxaan uga tahriibay nabad darro waa ma garan karo waxa boosaaso iyo gaalkacinta u dhaxaysa amni xumada taallo oo isagu arkay annagu arki weyne waana ka xumaa rumaantii Puntland waa meesha Soomaaliya ugu nabadda badan xaqiiqdii sababtoo wax khatar oo ka jirta ay ma jiraan waxa gaalkacay gaari aad ka soo raacday ilaa boosaaso jidgooyo ku dhiganaya ma jiro wax naftaada kugu haystaa ma jiro sababtoo xabadda ka dhacdaa waa beri ilaa magaalada salkeeda cid ridaa la garanaya amnigaas oo dhan ay isagoon u haystaa oo wali magaaladii ayl ka soo jeedo magaaladii Soomaaliya ugu amniga badnayd ma garan karayo waxa Puntland uu yiri waa uga tahriibay dhalinyarada tahriibtay maxaa ku kalifa saaxiibkood baa taga dalka la aadaan marka Yurub jacayl baan oran karaa wax kale aan oran karaa ma jiro dalka markaan u soo laabtay su'aashayda muhiimadeeda waxay tahay boqolkiiba boqol dhalinyarada waxaan uga wacyigelinaa waa adkeynta amniga iyo in ilaamaha amniga ay kala qayb qaataan oo wixii khatar ay arkaan in mataqaana ay kula xiriiraan community police-ka iyagoo ah ay isku xiran yihiin xaafadaha waxaa jira inay la shaqeeyaan guddoomiyaha xaafad kasta 20 dhalinyaro ah jooga oo ka qoran oo wixii khatar ah isla markii ka soo jawaaba marka insha Allah ta'ala inta aad uma sitaay guddoomiye waxaan ka codsanayaa markaa panelka inay markaas ku ekaadaan mawduuca ama su'aasha aan weydiiyo iyagoo aan ka baxeen mawduuca aan wareego Saciid Yuusuf oo ah waayo arag mudane waxa la sheegaa markaa Soomaaliya 3 meelood meel ka mid ah la leeyahay marka dhalinyaradaasi si qaab noocyada aad aaminsan tahay in looga faa'iideysan karo ay isleedahay bismillah
waa mahadsan yahay gudoomiyuhu arrinka Puntland marka laga hadlayo uu ka gedisan yahay tan kaleeto waxaan rabaa wax yar inaan gudoomiyaha uga jawaabo intaan su'aashaada aan gelinin Puntland ma oranin nabad kama jirinin Soomaaliya markay burburtay gobolka ugu nabadda wanaagsan buu ahaa laakiin anigu qof waliba hadaf buu leeyahay anigu ima deeqin boosaaso ilaa gaalkacyo umana arkin inay tahay wax sax nabaduna dalka dhan baa la'aa 3 gobol oo kaliya oo loo safraayay oo laguma sheegi karo nabad dal baynu ka hadlayno gobollo arrinka kale oo labaad raba inaan ka jawaabo waxay ahayd waa runtiisa ilaa 90kii ilaa waqtiga iyada la asaasay ilaa maantay Puntland habeen baa la safraa Puntland habeen baa la safraa 30 sano gobol la safrayay habeen Puntland baa ka jira gobolada kale inta kale maalintii baa la safri jiray sababtoo secretariatka iyo qofka safarkiisa ayaaba khatar ku jiray haddii aan ku soo laabto dhalinyarta iyo tahriibta wax yar taaba ku soo laaban karaa gudoomiyaha hadalku uu yiri horta waa mahadsan yahay inaan isbaranana waa ay fiican tahay dhalinyarta Yurub jaceylka maaha anigu san aaminsanahay Yurub anaa kula kulmay dhalinyaro Istanbul baan kula kulmay Norway baan kula kulmay Jarmal baan kula kulmay halkan ka tagay maaha gobol kale Puntland bay ka tageen waxay ka caminayeen ta gudoomiyaha inuu ogayn kala tagaran maayo shaqo la'aan bay ka caminayeen nin walba wuxuu ku leeyahay jaamacad baan ka soo baxay warqad baan wataa kan way shaqo ma aanan helinin haddaan nabadi jirinina shaqo ma jirto dhalinyartay ku xiran tahay marka inay horta dhulka aaminaan oo iyagu ay nabadda ka shaqeeyaan arrinka kale haddaan u soo laabto dalku hadda wuxuu u qaybsan yahay waxa la yiraahdo federalism sida inagu ugu dhagan yahay iyo sida adduunku ugu dhagan yahayna labay kala tahay wallaahi haddii taas la eego haddii inaan ku fogaado ma rabo haddii taa la eego dhibaatada ugu badan ee dhalinyarta haysata waa qabyaaladda ay aabayaasheen iyo adeeradeen noo keeneen nin waliba oo dhalinyaro ah dhibaato kale ma haysato nabadiisuna waxay ku xiran tahay nabadiisu iyo asaga horumarkiisuna waxay ku xiran tahay in horta marka uraysa asaga laga saaro qabyaaladda iyo wax noocaas in lagu download gareeyo dhulkaana inuu asagu leeyahay dhaxalkana inuu asagu leeyahay shaqada inuu ka faanin tii uu soo gaaro inuu qabto siyaalo badan baa looga faa'iideysan karaa horta dhalinyarada in loo sameeyo meelo iyagu gaar ay u leeyihiin ma jiraan Puntland ma jiraan gudoomiyaha ma qaante haddii daal asaasay anu ma ogi laakiin imaatankayga kuma arag meel dhalinyarta iyaga lagu soo tababaro waayo nolosha bini'aadamku tababar bay u baahan tahay meelo gaar ah oo iyagu leeyihiin garoomo gaar ah oo fil u ah ay ku ciyaaraan meelo habeenkii isugu yimaadaan oo iyaga ururka dhalinyaradu leeyahay oo ay ku caweeyaan oo lagu wacyigeliyo oo lagu sheego nolosha saxda iyo wax ka maqan iyagu u baahan yihiin iyo dalkaana inay iyagu leeyihiin waa mahadsantahay waa tahay waxaan u wareegayaa dhanka dhalinyarada ka dhalinyaro ahaan haddii ay dhalinyarada Soomaaliyeed ay u istaagto in ay ka qayb qaataan nabadeynta dalka maxaad isleedahay way soo kordhin karaan markaas waxyaalaha ay soo kordhin karaan waxaa ka mid ah in la helo dhalinyar badan oo shaqaysa waayo markii laga hadlayo nabad darrada laga hadlayo 90% waxyaalaha khalkhal geliya waxaa ka mid ah shaqo la'aanta ka jidha dalka ka jidha shaqsiga dhalinyarta markuu u istaago inuu sameeyo ka qayb qaata nabadda qodobka koowaad uu sameeyo waxa weeye naftiisa inuu ka bilaabo naftiisa ka bilaabo ka bacdi buu u gudbi karaa bulshada u gudbi karaa markuu naftiisa horumariyo dhalinyartii marka qof kastana isku istaago naftiisa inuu nabadeyn iyo wanaag iyo isbedel ku keeno waxa isbedelaya magaalada ku noolaa waxa isbedelaya wadankiisii waxa isbedelaya dadka isbedelaya waxa isbedelaya qofka markuu istaago wuxuu sameynayaa shaqo abuur wuxuu sameynayaa inuu aqoon raadiyo wuxuu sameynayaa inuu dhiirigelin sameeyo wuxuu sameynayaa barnaamijkiisa inuu qabto intaas oo dhan baa dalka waxa u soo kordhinaya wanaag u soo kordhinaya nabadeyn u soo kordhinaya
dhalinyartay igula jirtaa banalka igula jirta qayb baa waxay dhaheen dalka waxaa ka jira nabad baa ka jira nabaddu ma ahan xabadda la isku rido nabad darradu ma mid xabadda la isku riday kaliya nabad darradu meelo badan bay gashaa kumana soo koobin waxa weeye Soomaaliya ku qoran marka meesha Soomaaliya ma ahan garow kaliya ma ahan waa gobollo kale oo kala gedisan kala xaalad gedisan kuwa waxaa jiraan banaanada loo bixi karin xaalad amni awgeed kuwa waxaa jira 6 saac habeenimo 7 saac habeenimo saaduntu dhexmaray kadib magaalada dhexdeedii marka xaaladahaas waxa weeye dhalinyaradu markay u kacdo waxay imaanayeen isbedel badan oo dhanka maskaxda dhanka aqoonta dhanka barashada dhanka ganacsiga baa imaanaya marka dalkina wuxuu keenayaa marka horumar markii nabadiisa la dhiso qodobka koowaad oo horumarka waddanka ugu istaagayo buu ka mid ah haddaan intaana su-aasha gelin ka hor si haddayba sheegay waxa waaye nabaddu iyadaa waxa weeye micnooyin badan leh waxay leedahay waddan kasta markii nabadiisa la qiimeynayo cabir beeleeda lagu cabiro soo markaa Soomaaliya nabadeeda maantay wadamo badan oo adduunka ka mid ah way dhaantaa iyo waliba dariska haddii xitaa loo eego wadamada dariskooga bay dhaantaa mararka qaybtood mararka qaybtood waxaad maqashaan wadamo badan oo soo jira in badan jiray xadaaradooyin badan leh misna burburay sababtu waxa weeye dhalinyaradoodii baa waxa ay lumiyeen ama waxay garan waayeen doorkii ay ku lahaayeen dalkaas isaga ah taasaana kalifayso inuu burburo taariikho hore haddaan dib u raaco xadaarooyinkii Greega Japan India xadaarooyinkaas way burbureen sababtuna ugu weyn ay u burbureen waxa weeye dhalinyarada baa garan waayeen doorkii ay ku lahaayeen dalkooga haddaan usoo laabto laakiin dib u kabashay sameeyeen maanta adduunka meeshay ka joogaan wada ogsoonahay haddaan su-aasha usoo laabto dhalinyarada Soomaaliyeed haddii ay isgarab istaagaan hadday istaageeraan hadday waxa weeye ay isgacan qabtaan waxaan aaminsanahay kaalin muhiim bay ku yeelan karaan nabadda dalka sababtoo ah cidda ugu badan oo waxa weeye nabadda dhalin karta ama nabadda waxa weeye si kale u nabadaro keeni karta waa iyaga sidaas darteed hadday iyagu hagaagaan dalku waa hagaagaya xoogaas dhalinyarada ah oo dahsoon ama muuqda haddii la tawjiihiyo laga faa'iideysto xoogooga waxaan aaminsanahay doorka ugu muhiimsan bay ka qaadan karaan doorkooga ay ka qaadan karaan kow waxaa ka mid ah kow horta inay iyagu isgarabsadaan laba waxa waaye wacyigelin guud in ay sameeyaan sababtoo ah waxaan khibrad u leenahay dalkeenu wuxuu soo maray taariikhdii fiicnad iyo taariikhdii xumeed taariikhaas marka waxay dhaxal siinayaan ama waxay inoo jidkeena kusii xaarayaan mustaqbalka meeshaan u soconno sababtoo waxaan rajaynaynaa dal wanaagsan nolol wanaagsan dal sharaf leh dal jira sidaas darteed dhalinyaradu kaalimo noocaas oo kale ah bay ka qaadan karaan waqti xaadirkana waxaa weeye waxaad arkaysaa dhalinyaradu inay aada u soo kobceen shalay waxaa arkayseen garow inuu ka dhacay garow buug fayr oo kaleeto ay kasoo qaybgalayeen dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan iyaga oo waxay qalin maanta Muqdisho ka dhacaya Barbaro uu ka dhacay Booram uu ka dhacay wadankoo dhan saas darteed waxaan aaminsanahay mar hore bilaayeen inay wax istaagaan isgarab istaagaan marka biidnillaahi tacaala waxa weeye guusha iyo in nabad dalku noqdo waa dhowdahay laakiin fasiraad kale ayaan laga bixino waxa weeye markasta waxa weeye in guusha maanka lagu hayo assalaamu calaykum aad u mahadsanyihiin Duli Axmed intaan u gudagal marka dhanka soo qaybgalayaasha su'aalahooda iyo faallooyinkooda ku darsan lahaayeen hal mar aan gudoomiyaha su'aalaha israaciyo mudana gudoomiye dhankeena haddii ay dhalinyaradu u istaagaan nabadeynta dalka iyo inay ka shaqeeyaan siduu dalku nabad u noqon lahaa marka idinka ahaan maxaad isleedihiin soo kordhinayeen bismillaahi raxmaani raxiim bulshada Soomaaliyeed qaasatan waa 75% dhalinyarada haddaan ayagu ahmiyadda koowaad la siinin oo juhdiga aan iyaga aan la gelinin haddee ma suuroobayso in dalkan uu amni ahaado ama inuu nabad ahaado saas laaldigeed dowladdu wax badan ayaa uga qorshaysan dhalinyarada waxaa jirtay dhawaan in uu lagu dhawaaqay sanduuqii horumarinta dhalinyarada inuu miiska saaran yahay dhawaan in la sameeyo si dhalinyaradu loo wacyigeliyo shaqo abuur badan loo sameeyo dhalinyaradu waxaan rumaantii annagu waa
waxaa keliya haddaynu dhalinyaro nahay aynu haddii amni la haysto noloshoo dhan ayaa mataqaanaa imaanaysa dalkuna qof walba ay in skiiliskaysa iyo shaqo abuurkiisa iyo mataqaan loo shaqo abuuran waa wax weyn oo hadda dowladdan u yaal iyagana aan rabno inaan mataqaanaa intaan aan usii sheegno dalkeenu dhalinyaradu meel badan baa jira oo hadda gaalkacyo iyo boosaaso iyo garoowe oo youth center ah baa jirta oo dowladdu ka dhistay oo dhalinyaradu mataqaan lagu wacyigeliyo ayagu ay leeyihiin garoomo leeyihiin inta ka dhiman oo kalena hadda sanduuqa horumarinta in loo sameeyo si shaqo abuurka iyo loogu sameeyo dhalinyaradu si ay mataqaanaa dalkooda u joogaan oo aaminaan markaan su-aasha kusoo laabto dhalinyaradu in looga faa'iidaysto amniga meesha ugu habboon ama mataqaa inta positive-ka ayaan mataqaanaa dowladdu ahmiyad weyn siinaysaa insha allah waa tahay markaa u wareega dhanka ka qaybgalayaasha mid iyo laba iyo saddex aan siiyo sidoo kale horumarin yarkaasaa horumaraya bismi illaahi raxmaani raxiim waxaan salaamayaa dhalinyarada banalka soo abaabushay barnaamijkan dood cilmiyeedka ah oo ah barnaamij mataqaana aad iyo aad loogu baahan yahay laguna wacyigelinayo dhalinyarada ugu horreyntii haddaynu ka hadalno kaalinta ay ku leedahay dhalinyaradu Soomaaliyeed ka qaadan karto nabadaynta dalka sidaynu ogsoonnahay dalkeena Soomaaliyeed waxa uu haystaa raw material ah dhalinyaro kaas oo mataqaana tiradeedu ay dhanta 75%kiiba 75% dhalinyarada ah waxaan filayaa anigu haddii aan mataqaana qaabka reality-ga ama qaabka ay tahay aan ka hadlo in aysan 75%kiiba aysan ku hawlnayn inay ka qayb qaataan nabadaynta dalka marka aynu fiirinayno kaalinta ay ka qaadan karaan waxay ka qaadan karaan kaalin aad iyo aad u muhiim ah taa bedelkeeda laakiin maanta dhalinyaradu waxay ku hawlan tahay ama looga faa'iideysanaya siyaabo kala gedisan oo aad iyo aad u khaldan haddii ay ahaan lahayd qaab qabiilaysan haddii ay ahaan lahayd qaab mataqaanaa waxaa qarxinta wax kasta oo mataqaanaa waddanka maanta wax u dhibay waxaan filayaa inay dhalinyaro geysanayso haddaba dhalinyaradu waxay u baahan tahay maanta dhalinyarada waddanka Soomaaliyeed joogta in aynan ka fekerin amniga ay inta yar inoo muuqanas badankoodu waxay mataqaanaa ku jiraan xaalad riski bay ku jiraan way of course dhalinyaradu markay jaamacadaha ka soo baxaan wax shaqooyin ma helaan qofkana waxaba dhici karta inaan loo ogolaan ama aysan helin dhalinyaradu chance ay uga faa'iideeyaan ama ay kaalintooda ka qaataan in ay kaalintooda ka qaataan nabadaynta dalka su-aasha aan weydiinayo waxay tahay dhalinyarada banalka ah ee soo abaabushay barnaamijkan maxay tahay idinka qorshaha idinka degan dhanka mataqaanaa dhibaatooyinka ay dhalinyaradu ku jiraan maxay tahay qorshaha idinka degan ee aad ka qaban kartaan waxaan weydiinayaa su-aasha xoghayaha isboortiga gobolka Nugaal baan weydiinayaa maadaama isaga uu nagala joogo wax mas'uul arrimaha dawladda maxay tahay qorshaha idinka qorshaysan haddii aan lahayd dawladda ama dhalinyaradan barnaamijka soo abaabushay waxyaabaha khatarta ah ay dhalinyaradu ku jirto oo ay ahaan lahayd barnaamijyo kala duwan aad iyo aad u khatar badan haddii ay ahaan lahayd in looga faa'iideysanayo qaab qabiilaysan in looga faa'iideysanayo qaab mataqaanaa riski kasta ama xaalad kasta oo looga faa'iideysan karo dhalinyarada maxay tahay qorshaha idinka qorshaysan bismillahi rahmaani rahiim anigoo soo koobaya waxaan u mahadcelinayaa dhalinyarada ka qayb qaadatay barnaamijka iyo dhalinyarada ka soo qayb gashay iyo TV-ga barnaamijkan waday oo barnaamijka aadka muhiimka u ah waxay muuqata in meesha taalo su'aashaas ah mataqaanaa doorkay dhalinyaradu ku leeyihiin nabadda ama peace building si uga qayb qaadan karaan dhalinyarada Soomaaliyeed markii nabad la yiraahdo iyo dhalinyaro waxaan ii muuqata saddex qodob horta inaan kusoo koobo rabaa laakiin waxaa ii muuqata dhalinyaradu inay uga qayb qaadan karaan dhowr dhinac markii laga istaago inay shaqo qabtaan way uga qayb qaadan karaan oo ay sameeyaan barnaamij abaabulaan ilaahu ambeerka beelinay sidoo kale ay dawladda ka caawiyaan ay maxay ahayd oo ay shaqo qabtaan wax shaqo la xiriira inay qabtaan oo sameeyaan way uga qayb qaadan karaan haddii ahaan lahayd siduu gudoomiyuhu ka hadlayay inay xaafadahooda amnigooda ka shaqeeyaan dawladda iyo wasaaradda dhalinyarada kala shaqeeyaan inay mataqaanaa iyagu barnaamij wacyigelin ay sameeyaan sidoo kale waxay kaga qayb qaadan karaan inay self building sameeyaan markii la helo dhalinyarada aqoon-yahana nabaddu iyada ayaa imaanaysa sidoo oo kale waxay uga qayb qaadan karaan inay sameeyaan iyagu naftooda ama dhaqaalaha dalka ay horumariyaan mar walba oo dhaqaaluhu kobco qofku uu dhaqaale helo waxay imaanaysaa in nabaddu ay kor u kacdo kolay aanu saddex qodob baa ii muuqda waana mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan gabagabaysanaynaa marka mid iyo laba aan kusoo gabagabaynayaa gudoomiyaha haddaan
microphone kusoo wareejiyo iyo su-aashii kawaata. su-aashu maxaa dhalinyarada idinkaga qorshaysan? dhalinyaradu wax badan baa ka qorshaysan, hore u sheegay. markaan commentiga dhanka dhalinyarada ku hormaro 5 sano soo halgamaynay runtii. dhalinyaradu markii loo helo sanduuqa horumarinta, kii wax soo bartay oo shaqo la'aanta ayaa mataqaan shaqo abuur loo sameynaya. kii gabyaaga ahaa waxaa loo sameynayaa mataqaanaa dhiirigelin oo xirfad walba oo qofka uu la yimaado. dhalinyaradii mataqaanaa beeraha baratay waxaa loo sameynayaa cilmigii beeraha in la baro, danna mataqaanaa sida ay beertii ku falan lahaayeen. wax walbana waxay ku xiran tahay in la helo miisaaniyadda dhalinyarada. haddii aan dhalinyarada sanduuq horumarineed oo budget oo loo dhaqaale aan loo helin, waxay noqonaysaa wax badan ayaa naga maqnaanaya. wax walba in la horumariyo ninka dhalinyarada waxaa ka horeeya kow waalidka aad buu mahadsan yihiin, cilmiga ayagaa ciyaalka bara, aqoontooda ayagaa geliya. qofku markuu wax barto oo cilmiga la baro heer jaamacadeed uu gaaro, waxyaalo badan oo waxaa jira khatarta ah uusan u bareeri karin oo uga nugul yahay qofka aan waxba aqoonin, sababtoo cilmiga ayaa qofka celiyo haga. marka haddii la helo sanduuqaas hadda madaxweynuhu noogu dhawaaqay dhawaan aan rajeynayn insha allahu tacaala in dhalinyarada Puntland iyo qaasatan dhalinyarada Soomaaliya meel kasta ay joogaan in laga faa'iideysto oo dhiirigelin dhalinyarada loo sameeyo oo mataqaanaa kii baahnaa iyo kii jiiska ah iyo kii mataqaanaa cilmigii guriga la fadhiyay dhammaantood dhalinyarada la ururiyo, mataqaanaa la sameeyo ururadii dhalinyarada saxda ah si dhalinyaradu u helaan matalaad dhab ah. danna mataqaanaa dhalinyaradii ciddii cilmigaasi iyo mataqaanaa u baahan oo dhalinyarada la baro, danna mataqaanaa halkaasi ay ka helaan shaqo abuur badan iyo in dhalinyaradii laga faa'iideysto aqoontoodii. hadda markii aan example idin siiyo, ka soo qaad madaxtooyada dalka ugu sarreysa Soomaaliya waa Villa Soomaaliya. dhalinyarada ka shaqeysa kan kaamirada wata ama dhalinyarada kale hadda ka shaqeysa waa dhalinyaradii Puntland ka tegay oo mataqaanaa aqoonta lahaa. waa laga faa'iideysanayaa xirfadoodii, waxaa laga faa'iideysanaysaa aqoontoodii. marka aad bay dhalinyarada Soomaaliya meel kasta ay joogaan waxay u baahan yihiin waa dhiirigelin iyo in la garab istaago, sababtoo qofka haddaan la dhiirigelin oo aan dhaqaale lala garab istaagin waxa uu isma wadi karayo. marka intaasaan oran lahaa. waan soo gabagabanayaa marka luul iyo Axmed iyo Saciid, marka hal daqiiqo maxaa kusoo gabagabayn lahaydeen markaas fikraddiin? waxaan kusoo gabagabeynayaa khaasatan kaluul ahaan xaaladdeena amni gacanteena ku jidha. habda saynu ka dhigno bay noqonaysaa. haddaynu khalkhal gelino nolosheena inta ka dhiman khalkhalkaasi ahaanaysaa. haddaynu dhisannana saynu u dhisannay baynu ugu baraaraynaa, waxna ugu qabsan karnaa beri ka maalin. haddaba gacantaynu isqabsanno ka dhalinyaro ahaan xaaladda amni ee waddanka jidha aynu u soo jeesanno, wax badanna aynu ka qabanno, wadajir baynu wax kaga qaban karnaa. taladeeda ugu dambeysaan kusoo gunaanadayo waxaa weeye saaxiibkeyga wuxuu ka dhawaajiyey sanduuq in dhalinyarada loo helo ku celceliyey, iskuma xidhna sanduuq iyo miisaaniyad in dhalinyarada loo helayo in la tawjiihiyo awooddooda iskuma xidhna. haddii laakiin ay isku xidhnaadaan in intay dowladdu miisaaniyad u helayso dhalinyarada inaysan dhiirigelin oo faraha ay ka qaado, halkaas waxaa ka imaanaya gaab. meesha aan hadda joogna gadaal baan uga noqonaynaa. sanduuqa waxaa ka muhiimsan dhiirigelintaa ka muhiimsan. dhalinyarada Puntland aad iyo aad bay u shaqeeyaan ama Soomaaliyaba, marka dhiirigelintii baa ka maqan. dhalinyarada su-aal haddaa weydiiyey baa jirto, dhalinyarada falalka amniga lidda ku sameynaysa maxaa kuwa qorsheen ka dhalinyarahan ama dowladda. dhalinyarada iyaga uma baahna inay dowladdu u isticmaasho hub iyo noocyada kala duwan, laakiin waxay u baahan tahay waa dhalinyaro la qalday in la dhiirigeliyo, in la wacyigeliyo, in fursad loo siiyo noloshaas ay dib ugu bilaabaan, si ay dib ugala midoobaan waxa weeye qoysaskooda iyo deegaanadoodii. Soomaaliya duruufo badan baa soo martay, hadday noqon lahayd dagaalo sokeeye, hadday noqon lahayd falal argagixiso, waxyaabahaas oo dhan. soo marka si aan waxa weeye nabadda lagala qayb qaato, waxaa muhiimsan waxa weeye in mar kasta tanaasulku uu ka imaado cidda madaxda ah. madaxda inay dhiirigeliso daayarteeda, u sheegto waxa weeye meesha hay'adda jooga inay ka dhaqaaqan, ay garab taagan tahay, ay waxa weeye ay ku faraxdo shaqooyinka ay hayaan. inahaas baan kusoo gunaanadayaa.
nabaddana waxa weeye cid kastaba ka qayb qaadanaysa waxaana ku celcelinaya waxa weeye meeshaan hadda taagannahay alxamdulilah meeshaan shalay joognay waa ka fiican tahay berina waxaan rajaynayaa inay kasii waxa weeye wanaagsanaato sababna waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay qaybta ugu muhiimsan ay leedahay asalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم وقت رواية قادنا ولا جوجا حنو مدعينا dhammaan ururka dhalinyarada iyo gudoomiyaha iyo Axmed iyo Luul oo barnaamijka iyaguna aad u soo daadiyay waxaan rabaa anigu wax badan sheegi maayo laakiin eray hadayaan inaan mar kale inuu kugu celinaya kacdoonka labaad ee inu u baahanahay muxuu noqon karayaa maxaynu ku saleynaynaa waa in yar oo kooban kacdoonka labaad waa inaynu ku saleynaa xisaab aabbayaasheen iyo adeeradeen qaladaadka ay galeen waxa weeye shalay dawladnimadii aan soo qaban la'anahay 3 sano aan gacanta ku dhig la'anahay xisaab ma aysan ku sameeynin ma aysan oranin si dawladnimada u badbaadinaa dalka u badbaadinaa ee waxa la yiri dagaal hala galo jamaahiirtu saas ku bilowbeen dhalinyaro anu kacdoon baan bay ila tahay in arinteena aynu ku saleyno kacdoonkuna ku saleysnaado mid wadanayadii ku jirto mid gurubeysi ah wax halka ana dhigay ciida aan rabno marka iyo waxyaalaha aan rabno waa maxay urur centralism oo Soomaaliya dhan ay wada leedahay oo dhalinyarada ah in la sameeyo marka u horeysa ciida hoggaanka u dhimanaysaa nin ha ku soo dooraneen ayuu yahay ku soo kaansada muxuu yahay muxuu ina tari karaa aamin ma yahay waxaan u dhiibano xogteena ma hayn karaa hadafka aanu aaminsanahay ma ka dhaweyn karaa hawl noocaas haddaynu rabno dalkeena iyo dhibaatada ka jirta iyo dhalinyarta inaysan dib damban oo qurxin falal amni daraan aysan ku kicinin oo ah waxyaalaha hadda jira sida gudoomiye ka dhawaajiyo ku laaban maayo aynu soo koobay aynu iyada ruuxeena aynu ku saleyno dhalinyarta shaqo abuurka siduu sheegay oo ah bal horta marka in la wacyi galiyo marka labaad maxaynu haysanaa dhalinyarta waa in la baraa maxaan maxaan leenahay waxaynu leenahay kow in la baro dadyogu adduunka maxaysan haysan oo inagu haysanaa oo nooga baahan yihiin waa shaqo ka dhiganaysaan berita ka maalin oo loo baahan yahay shaqo ka dhigataan taas ayaa noogu muhiimsan iyo halku dhigiya badan oo kale to insha Allah waan kulmi doonaa hadii ilaahay ma waqtiga ayna ku yar salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waatahay aad ma san Saciid guud ahaan intaas ku soo gabagabeynayaa doodii ku saabsaneed doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka qaadan karto nabadeynta dalka oo igala qaadanaysay Luul Daahir oo ah gabar Soomaaliyeed oo wax ka baratay jaamacadaha dalka Axmed Osna kamid ahaa dhalinyarada dalka wax ka baratay Saciid Yuusuf oo waaya arag ah iyo sidoo kale gudoomiyaha dhalinyarada ciyaaraha gobolka Nugaal sidoo kale dhalinyarada iyagana ka qaatay aad baan ugu mahadcelinayaa waan salaam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh